tan iyo intii uu soo ifbaxay ee lagu arkay ama laga helay ismaamulkani Gaarisa caabuqa coronavirus oo gabi ahaanba dalka laga xaqiijiyay kiisas gaaraya 1000 ayaa magaalada Gaarisa waxa laga dareemayaa isbedel aad u weyn oo la xiriira cabsida laga qabo xanuunka COVID-19 bulshada qaar ayaa waxa ay cabsi badan ka muujinayaan in xanuunkani hadii uu ku sii faafo ismaamulkani Gaarisa ay cabsi fara badan ka dhalan karto dhanka kaleeto iyadoo aan wada ognahay in ismaamulkani Gaarisa laga xaqiijiyay 2 kiis oo la xiriira xanuunka COVID-19 oo kala ah magaalada Ifo ee xiriyaha qaxootiga Dadaab iyo sidoo kaleetana magaalada Dhagaxley oo laga xaqiijiyay halkaasi oo sidoo kaleetana wasaaraddu ay sheegtay in laga helay 2 qof oo xanuunkaasi qaba kuwaasi oo la sheegay inay ka soo gudbeen xuduudka Soomaaliya ay la leedahay dalkani Kenya dhanka kaleeto magaalada Gaarisa ayaa waxa laga dareemayaa in sidoo kaleetana dadku ay cabsi ka muujinayaan dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kaleetana ganacsiga ayaa waxa uu galay xaalad adag iyadoona dadku ay inta badan hadal hayaan xanuunka COVID-19 ee ismaamulkani laga helay markii ugu horeysay magaalada Gaarisa ayaa waxa qaas ahaan laga dareemayaa cabsi ballaaran bulshada markii aad wareysato waxay ku sheegayaan in xanuunkani uu ku sii faafi karo walow aysan jirin wax taxadar ah oo laga dheehani karo bulshada dhexdeeda markii aad dhex socotana aad arkayso dad isku dhawaanayo iyo sidoo kale tan saxmadda suuqa oo ka duwan sidii horeeto oo aad ka dareemayso ama ka dheehan karto in dadku ay u diyaar garoowayaan ciida bisha baraanrada ciida ciidulfidriga dhanka kaleeto bulshada ayaa waxa ay sheegeen in ay cabsi badan ka muujinayaan xanuunkani hadii ay dhacdo in uu ku sii faafana ay xaaladdu intaasi ka sii darnaan karto Cabdicasiis Siyaad warbaahinta kulmiye magaalada Gaarisa